إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى kitaabkiisa munazalka oo muxkamka ah waxau ugu naadiyey mu'miniinta kulligood isagoo la khidaabayo magac loogu naadiye magaca ugu wanaagsan. waxau rabbi khidaabkaa u soo wajahay lijamiici almu'miniin inta iimaan kale dhammaantood. waxauna allah ku yidhi: war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow, khamrada, qamaarka, asnaamta iyo qoryaha lagu qayb dalbo kulligood waa qurun, shayddaanka camalkiisa ayayna ka mid yihiin. ee isaga durga oo ka fogaada. haddaad ka fogaataan inaad liibaanaysaan ayaad xaqiiqo ku tihiin. sidaas ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala. aayaddaas sida laga garanayo waxaan daraasa ku samaynaynaa allah hadduu qadaro subxaanahu wa tacaala arrimaha khamrada, cabitaankeeda, ka beec mushtarkeeda iyo waxa la midka ah. waxaan markaa daraasada ku samaynaynaa waxa weeyaan khamrada iyo wax alla wixii ayada la ilma adeera. waxaa ayada la ilma adeera ama ayada la mid ah waa wax alla waxa lagu daroogoobo oo idil. rabbi wuxuu yidhi khamradu waxay tahay oo keli ah, qamaarkuna ou yahay, asnaamta iyo balaayada meelaha la saarsaarayaana ay tahay, iyo qoryaha lagu qayb dalbo. waa bahalla qoryo ay yacni markay doonayeen arrin inay sameeyaan ay quraysh iyo gaalada waktigii hore jiri jirtay inta la soo baxaan ay eegi jireen bal wuxuu inay khayr u yihiin iyo in kale. arrimahaas waa qurun, shayddaanka camalkiisa ayayna ka mid yihiin ee isaga durgaayo waa la yidhi subxaanahu wa tacaala. macnuhu waxa weeye ashyaadaas ayada ah oo dadku ay jecel yihiin oo caadaad ummaddu ay ku dhaqmi jireen horay ahaan jiray. arrimahaasu waa arrimo aad u xun oo qofka muslimka haadaan iyo halaag ku dhex tuuraya. ee isaga fogaada haddaad doonaysaan inaad liibaantaan adduunka iyo aakhirada labadaba. khamrada waxaa la yidhaah shay kastee caqliga bani aadamka bedela waxuu doonaba ha noqdee. ashyaadaa isaga durga ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala oo yaan loo dhowaanin. khamrada taxriimka la xarimay tadriijiyan ayuu ahaa oo waxuu soo maray maraaxil. kolka khamrada taxriimkeeda waxuu soo maray maraaxil dhowr ah, ilaa dadka ayaa cabitaankeeda aada ugu mamanaa. sha'nigeeda wax ku soo dega waxaa ugu horreeyey aayaddii uu allah yidhi subxaanahu wa tacaala: yasaluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas. waxay kaa su-aalayaan nebigow xagga khamrada iyo qamaarka. waxaad ku tidhaa dadka khamrada iyo qamaarka dhexdiisa waxaa ku sugan dembi fara badan, wax manaaficana dadka way ugu sugan yihiin tijaaradooda. aayaddaasu markay soo degatay dadka qaarkii way isaga tageen, qaarna waxay yidhaahdeen annagu manfacadeeda ayaan qaadanaynaa, dembigeesana waan isaga tegin. qaarna waxay yidhaahdeen shay dembiga ku sugan oo aad u fara badanyay annagu dooni mayno. kolkaas ka gadaal waxaa soo degay muddo dambe aayaddu allah yidhi: laa taqrabu asalaata wa antum sukaara. salaadda ha u dhowaanina adinkoo saqraansan oo ha dukanina. haddana markaa dadka qaarkii ayaa isaga tegey oo waxay leeyihiin dadkii ka tegey xaaja nooguma sugna, mana doonayno wax naga mashquulinaya salaada rabbi.
dadka qaarna way cabi jireen awqaadaha salaada awqaad aan ahayn ilaahay soo degatay aayadda uu rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijs war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow khamrada damaarka iyo ashyaada la midka ah waa qurune isaga durga waxay markaa noqotay khamradii iyo wax kastoo caqliga bani aadamka doorinayay arrin ka xaaraam ah dadka dushooda ilaa ay muslimiinta qaarkood yidhaahdeen maa xarama allahu shay-an ashadda min alkhamri rabbi ma xarimin shay ka daran khamrada macnaha taxriimka khamrada lagu sameeyey sida loo adkeeyo wax loo adkeeyaba ma jiraan ama dadku say khamrada u jeclaayeen shay ay u jeclaayeen oo laga xarimaba ma lahan allah subxaanahu wa tacaala si adag ayuu u xarimay waxauna ku magacaabay rijsi iyo qurun iyo shaydaan camalkii cumar binu khadaab waxau odhan jiray allah iyow khamrada naga saafi bayaan saafi ah naga sii oo naga caafi aayaddu markay soo degatay oo allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi fahal antum muntahuun kuwa ka haraya ma tihiin khamrada iyo qamaarka iyo qurunka cumar binu khadaab waxau yidhi intahaynaa waanu ka harnay oo waan ka harnay mana u soconno mar dambana la imaan mayno sidaas ayay faraha uga qaadeen kolka marka halkaa waxaa yaallaa waa arrin aad iyo aad u cajiib badan oo laga doonayo dadka muslimiinta bal inay gartaan khamrada iyo qamaarka iyo qurunkaoo idil in laysaga tega ayaa la doonayaa allah subxaanahu wa tacaala waxau yidhi famaadaa bacda alxaqi ila adalaal xaqa ka gadaal maxaa ahaaday oon baadi ahayn xaqa waxa ka dambeeya waa baadi wax kasta oo maskaxda bani aadamka beddelaa khamrada ayay ka mid yihiin qofkii yidhaahda shay aan xaq ahayn ayaan soo dhowaynayaana baadi ayuu soo dhoweeyey axadka baadida soo dhoweeyaana wow baadiyoobaa qofka baadiyoobana alla cadaabkiisa ayuu dhex tegayaa marka rabbi a laga boqo subxaanahu wa tacaala maysirka waa qamaarka ansaabtana muslimiintu waxay yidhahdeen waa sanamyada dadka gabal waxay yidhaahdeen waa nardiga iyo wixii lamida sida turubka iyo macnaha waxyaalahan la cayaaro oo ay dadka gabal yidhahdeen shaxda aslaamtana waa qoryo ay soo saari jireen oo ay ku qoraayeen ashyaa marka haddii ay u soo baxaan qoryaha ay ayagu danaynayaan shaqadooda way qabsan jireen qoryaha qaarkood hadday u soo baxaanna shaqada way isaga tegi jireen waa waxyaalaha dad badan oo maanta jira ay yaqaanin oo ah bisha markay tiradaa leedahay lama safro biraha gabal sadaqada qaarkeed lama bixiyo sheeko aan loo joogin marka dadka islaamka rabbi a ka cabsadeen diintana ha la ilaaliyo waa markay islaamnimo jirto weeye khamradii iyo qurunkii la socday rijsi ayaa lagu magacaabay rijsiga waxaa lagu magacaabaa wax kasta oo qurun ah waxaa kaloo rijsiga la yidhaha diisay laga dhigo cadaabka iyo wixii la mid ah shaydaanka camalkiisa ayaguna ka mid yihiin qurunkaasu macnaha mabaadi'da daroogada iyo qurunka la xidhiidha waa mabaadi' ou shaydaan dadka ku dhiiro gelinayo shaydaan bayna dadku ku daydeen kolkaa warka durga muslimiinta oo rabbigiin ka cabsada haddaad ka durugtaan waad liibaanaysaan adduunka iyo aakhirada labadaba marka waxay muslimiintu halkaa ka garteen khamradu inay xaaraam tahay xaaraannimadeedana sharcigu ou meel adag gaarsiiyey rijsi ayaana lagu idlaaqay in laga fogaada ayaa lays amray khamradu waa mid qurun ah oo aan la cabi karin oo aan laga beec mushtari karin oo aan meel la dhiga karin oo aan qof lagu sadaqaysan karin wax walboo daroogahuna saa weeye marka ashyaada qurunka oo noocaasa muslimiintu ha isaga tageen hadday wanaag doonayaan alla wuxuu yidhi fajtanibuu khamrada ka dheeraada iyo qurunka la socda macnaha shay ayada ka mida ha ku intifaacinina ha cabinina ha iibgaynina takhliil ha ku samaysanina daawo ha ku darsanina khal ha ka dhiganina oo takhliil ha ku samaynina macnaha inta shay ku ridan yaysan khal idiin noqonin maxaa yeelay shay kasta oo xabitaankiisa iyo cunitaankiisa layska xarimay beeciisuna xaaraam weeye muslimiintu waxay ku kulmeen waxyaalaha maskaxda bani aadamka dooriya iyo dhiigga
كسعنا يحولها ربدودا إلا قضاء حرام تهي ساس أي مسلمين تسرعوا قلادين إن بدن وكمد بركا مسلمين تو ربي كعب صدا وانا قصدنا بوجود ذلك تقول فربدين قارتين الدون كي آخرة الله وضبا مسلمين الجمهور تولوا وحي لهاي سكة سبحان نغطي بهاش خمر اللي يراسل لمسود وين كرم لهان بركا خمر لها الله قد درقو يانا اللود وين المرنا وهدي وناقل الدون ايوه الدون كي آخرة الله وضبا اللي قبقوا ليسر رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري اجتنبوا كل مسكر waxaad ka durugtaan ood ka fogaataan wax kasta oo muskira oo wax sakhraamiya waa xadiis saxiixa dabaraani ayaa mucjamul kabiir ku qoray cabdullah ibn muqaffal ayaa laga wariyey waxaad ka durugtaan wax kasta oo sakhradu ku jirto oo maskaxda bani aadamka bedelaya ayuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh waxuu rasuulku riwaayad kale ku yidhi ijtanibuu maa askar wax kasta wax sakhraamiya ka fogaada waa xadiis saxiixa isagana wax kasta oo wax sakhraamiya ka durga khamrada waxaa laga samayn jiray waqtigii hore zabiibka tamarta iyo xindada shaciirka iyo durada rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa innii anhaakum can kulli muskir khamrada markii intaa laga samaynaya ayuu wuxuu haddana yidhi wax kasta oo muskira oo sakhrad keeni karaya oo maskaxda bani aadamka wax u dhibi karaya waan idinka reebay anagu sidaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidkaa waa xasan abu daawuud iyo kayrka ayaa soo saaray bal haddaba waxaad arkaysaa wixii lagu daroogoobaya oo maskaxda bani aadamka bedelayay waxaa laga soo saaray raashinka la cunayo sida zabiibka timirta xindada oo loola jeeda qamxiga shaciirka iyo masagada qaar ka mida oo kale raashinkii la cunayay ayaa laga sameeyey dad baa laga yaabaa marka lagu yidhaahdo waxaan waa lagu sakhraamaa xaaraam weeye iska day waa geeda maxaa ka macnaa sida qaadkaoo kale qaadku hadduu geed ka baxo waxaad ogaanaysaa wax geed ka baxa in lagu sakhraamo xaaraamna ay tahay in la isticmaalo waxyaalahaas qofka muslimka marka waxaa laga doonayaa inuu iska ilaaliyo wax walba oo darooga ah oo maskaxda bani aadamka bedela oo dhibaato u keenaya ama caafimaadkiisa ha noqoto ama dhaqaalihiisa ha noqoto ama diintiisa iyo noloshiisa kale ha noqoto xaaraam weeye in la iska ilaaliyaa la doonayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wayuxillu lahum addayibaatu wayuxarimu calayhim alkhabaa'is waxyaalaha dayibaadka oo wanaagsan inuu u xallilo ayaa nabiga loo soo diray dushoodana ou ka xarima khabaa'ifta iyo waxa qurunka oo xunxun oo dhan khamradu khabaa'ftay ka mid tahay daroogadu khabaa'ftay ka mid tahay qaadku khabaa'fta uu ka mid yahay sigaarku khabaa'fta uu ka mid yahay intaasoo idilna in la iska dayaa la doonayaa nin alla ninka qayilaya oo wax darooga isticmaalaya khatar buu ku sugan yahay rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala ashyaadaasu waa khabaa'if wax hagaagsan ma ahan nafta uma roona diinta uma roona nolosha uma roona rabbi raalli kama ahan waa wax khayr daran rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala oo faraha laga qaado waa haddii wanaag la doonayo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina aladii xarama shurbaha xarama baycuhaa shaygii cabitaankiisa la xarimay beeciisana waa la xarimay waa alkhamra iyo wa ashbaahiha khamrada iyo wixii ayada shabbahaya shaygii in la cabo ama la cuno la xarimay waxaa la xarimay beeciisa mana bannaana dad baa hoteeladooda khamro ku iibiya dad baa aqalladooda khamro geeya dad baa warshadahoodu khamro soo saaraan dad baa daroogada ka beex mushtara oo daroogada adduunyada u iibgeeya oo lacagtooda ay darooga ku saabsan tahay wa rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala war sidaa wanaag lagu gaari maayo dad yow diinta islaamka ilaaliya xadiidka asaga imaam axmed muslim iyo nasaa'i baa soo saaray waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha xarama alkhamra wa xarama almaytata wa hamanaha wa xarama alkhanziira wa hamanah waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam allah khamrada wou xarimay wax kastoo caqliga bedela wou xarimay
lacagta laga helo wuu xarimay ku mucaamilaashadeeda wuu xarimay ka shaqaynteeda wuu xarimay in la qaatana wuu xarimay waa in laga fogaado waxa rasuulku xarimay sallallahu alayhi wasallam waxa baqtiyay iyo lacagta laga bixiyo wax kasta oo aan gowrac sharciya lagu sameeyo beecooda wuu xarimay lacagta ka soo baxdana wuu xarimay sallallahu alayhi wasallam khinziirka rasuulku wuu xarimay asaga ahaan buu xarimay lacagta ka soo baxdana wuu xarimay sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa weeyaan Abu Daawud ayaa soo saaray Bayhaqi iyo rijaal kale marka rabbi laga boqo subhanahu wa ta'ala yaan loo dhawaanay ashyaadaas ayada ah dadka muslimiinta waa inay farahooda ka qaadaan wax kasta oo diinta lagu diiday oo inay xaraam yihiin lagu cadeeyo aad u jeedo xumaatadooda waa inaan qofka muslimka u bareerin haddaba marka muslimiinow rabbiga idin khalqay ka cabsada oo hurdada inta ka kacdaan oo xaqa u guntantaan baktiga iyo qurunka dadkiina ka dhiciya rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi inna allaha la'ana al-khamra وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها صلى الله عليه وسلم الله خمرنا عين تيدا وحرمي الله سبحانه وتعالى خمرنا عين تيدا وحرمي وانا لعنضي لعن الخمرة كان سميه ولعنضي كان لو سميه ولعنضي متك حبا ولعنضي midka cabsiya wuu lacnaday midka soo qaada wuu lacnaday kan loo soo qaado wuu lacnaday midka iibgeeya wuu lacnaday midka soo iibsada wuu lacnaday midka lacagteeda cunana wuu lacnaday salawaatullahi wasalaamu calayhi sidaasay oranayaan xadiidka waa saxiix waxaana soo saara xaakim iyo bayhaqi bal haddaba qof walba u eeg inta halkaa lagu lacnaday khamradu daata ahaan way lacnadan tahay naxariista alle mid laga durjiyo weeye ayada daatadeeda axadka sameeyana naxariista alle ayaa laga durjiyey kan loo sameeyo naxariista allaa laga durjiyey midka xaba naxariista allaa laga durjiyey midka la xabsiyana midka isagu wax xabsiyana naxariista allaa laga durjiyey kan soo qaada naxariista allaa laga durjiyey midka loo soo qaadana naxariista allaa laga durjiyey midka iibgeeya naxariista allaa laga durjiyey iyo midka soo iibsadaba lacagteeda kan cunana naxariista allaa laga durjiyey shay kasta oo daroogahana sidaa weeye khamradu hadday sidaa tahay qaadka daatadiisaa la lacnaday kan sameeye ayaa la lacnaday oo beera oo isagu beeraha qaadka tabca midka loo tabco inuu cuno la rabo ayaa la lacnaday midka isagu cunaya ayaa la lacnaday midka cunsiinaya u dhiibaya ayaa la lacnaday kan soo qaadee gawaarida ku soo qaadaa la lacnaday midka loo soo qaadoo loo keenaya ayaa la lacnaday midka iibgeynayaa la lacnaday iyo midka soo iibsanaya iyo lacagta ka soo baxday midka cunaya qaadkuna saas oo kale weeye wax kasta oo darooga ah ama kaniini ha noqdeen ama budo ha noqdeen la qasayo ama bakti kale ha noqdeen wax kasta oo daroogana intaas ayaa lagu lacnaday kan lacagteeda cuna ayaa la lacnaday iska day kuwa kale axad walba oo shaqada baktigaas lagu qabanayo wax ka qabta waa lacnadanya kan dalaalkaa waa ku lacnadan kan isagu soo iibgeeyaa ku lacnadan kan soo iibsadaa ku lacnadan marka rabbigaa laga boqo subxaana wa tacaala diintan islaamka yaan lagu cayaarin oo la layicin yaan kitaabka rabbi lagu tumanin yaan kitaabka rabbi lagu tumanin oo aan sunnada nabiga lagu cayaarin war baktiga ha layska deeyo war daroogada ka beec mushtarkeeda ha layska deeyo war qaad lagama beec mushtari karo oo sigaar lagama beec mushtari karo oo khamre lagama beec mushtari karo oo darooga lagama beec mushtari karo oo bakti lagama beec mushtari karo oo lacagta ka soo baxda intaa wax ka mid a xaaraam weeye rasuulku waatuu xadiid xasana ku yidhi ina allaha idaa xarama calaa qawmin akla shayin xarama calayhim samana allah subxaanahu wa tacaala markuu qolo dushooda ka xarima inay shay cunaan shaygaa lacagtiisana waa laga xarima buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh shayga isaga ah lacagtiisuna dadkaa waa ka xaaraan buu odhanayaa sala allahu calayh wasalam war rabbi ha laga cabsado war maanta daroogadii dadku way xalaashadeen oo baktigii waa la banaystay oo qaadka iyo qurunka ayaa quud owliya laga dhigtay owliyada shaydaanka quud ayuu yihiin
dadka daroogada isticmaala waa mubadiriin shayaadiintay walaala leeyihiin shayaadiintuna rabbigood bay ku kufriyeen waxay diinaystaana ma lahan sida ka muuqanaysa rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala waxaad maqlaysaa nin dhintay oo lagu leeyahay xoolihiisiiba kafan looga waayey oo kafanta nin kale ka bixiyey war kafan nin kala bixiya maxay kugu taraysaa jirkaaga dhan baa bakti ka samaysan waxa aad ka tagtaa bakti wada ah kafanta haddii xalaal kasta laga dhigo manaar bay kaa badbaadinaysaa mar kasta waa lagugu cadaabaya ilaahay war rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala qof kasta xoolihiisa hadday wada xaaraam noqdaan kafantiisa qolo kale ha laga soo qaado xaggee laga keenay baararka khamrada dadka iska lahaa waxaa la leeyahay marka la aasayey yacni kafantoodii dad kala bixiyey sida jaziire iyo meel daran iyo amaakinta khamrada lagu iibiyo waxaana aad iyo aad u soo muuqanaysaa maalmaha dambe ummadii la odhanaya 100% islaam weeye oo soomaalida lagu sheegayey in ay noqdeen agsarkooda kuwa darooga gada kuwa khamre ka bixamishtara kuwa baktiga ka hela kuwa qaadka iibgeeya kuwa sigaarka iibgeeya caamo iyo culummada aad madiin lagu jiraba war rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala war waxaasu diin maahan ee daa'imkiina ka cabsada oo risqiga ilaah baa bixiya ee rabbi ka cabsado dariiq fiican risqiga ku doona waayo rasuulka ayaa xadiid xasana ku yidhi fattaqu llah wajmiluu fi dalab rabbigiin ka cabsada oo arsaaqda dalabkeeda qurxiya fa ina nafsan lan tamuuta xataa taktamila risqaha nafu ma dhimato risqigay adduunka kuleed ilaahay ka dhammaysata buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka bacdama arrinku sidaa yahay dalabka dunida qurxsada oo iska daya waxa aad ku jirtaan marka waxay arrintii noqotay siday u socotay oo loo tadawurayey hadda waxaa la samaystay baarar khamro khaasatan haddaan soo qaadana magaalada xamar lagu magacaabo muqdisho waxaa aad iyo aad ugu soo batay maalmaha dambe khamrada hoteelada ay ka tuntaan dadku ama shayaadiintu isugu tagaan khamre ayaa lagu iibiyaa khamrada saani baa loo keenaa waxaad arkaysaa dhowr kunteenar oo khamro lagu wado oo ku soo xiranaysa furdada dadkiina raashin ay cunaan bay la'yiin oo gaajay u dhammaanayaan kuwana maaliyadda inta tagaan oo dollar ka qaataan ayay khamro ku soo gelinayaan oo rabbi ka baqda subxaanahu wa tacaala war xaggeed ka keentaa waxaa kan war dadku miyaysan dad islaam ahayn war lacagta khamro laga hela xaggee la geynayaa cunnimo ma gasho sadaqaysi ma gasho ku noolaasho ma gasho wax lagu qabsan kara malaan maxaa lagu qabanayaa rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala lacagta shaneemada laga helay lacagta khamrada laga helay tan daroogada laga helay tan qaad iyo sigaar laga helay tan ummadda laga dhaxay tan jaajuusnimo lagu qaatay kulligooda iyo wada bakti weeye meel ay u socdaan iyo wixiina lama garanayo axad kasta ee cunto khamre yani lacag khamre ka soo baxday wax laga iibiyey cunay lacnad alla ayaa ku dhacaysa lacnada macnaheedana waxaa la yidhaha naxariis alle rabbi kuma siiyo weligaa naxariista rabbi oo dhan baa laga hoojinayaa ha laga fiirsada marka khamradana yaan lala yaabin waxaa ka xun wax kasta oo daroogaa qaadkuna wuu ka sii xumaan badan yahay marka dadka muslimiinta ah rabbigood ha ka baqeen diinta islaamkana ha ilaaliyeen rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi ina allaha xarama calaykum alkhamr wa kullu muskirin xaaraam allah subxaanahu wa tacaala dushiina waxau ka xarimay wax kasta oo maskaxda bedela wax kasta oo muskira oo maskaxda bedelaana xaaraam weeye uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waa wax kasta oo maskaxda bedelaya xaaraam weeye ashyaada aan hore u sheegnayna kulligood maskaxday bedelaan kaniinidaa la gadaa budo ayaa la gadaa la qaso ashyaa kale oo la cunaa la gadaa cirbad ayaa la isku duraa intaas oo idiloo darooga ah waxaa weliba dhaxday wakhtiyaal dhow oon dhirir badnayn waaxid la sheegaya inuu ka mid yahay dadkan soomaalidoo laleeyahay 100% waa muslim qaad buu cunay waa ku marqaami waayey waxau laqay wixii daroogada ahay kaniini buu laqay waa ku marqaami waayey waa sii waday cirbad baa lagu duray darooga ah markii lagu duray markaas ka gadaal ayaa wadnihiisu dilaacay naftuna ka baxday dariiquu ku dhintay xumaantiisa arag sidaa ayaa dhacday bal arrinta noocaasa dadkii ku dhacday ka warran waa khaatamo xumo midda ugu xun waxau yidhi waan ku marqaami waaye balan sii wado qaadkii wax waa igu tari waaye daroogadii kale wax waa tari weyse tii dadka lagu durayaa markii dambe lagu duray markii taa lagu duray ayuu khalaas wadnihiisa ayaa dilaacay naftuna way ka baxday rasuulka sala allahu calayh wasalamna waatuu xadiis saxiixa ku yidhi yubcathu kullu cabdin calaa maa maata calayh addoon walba waxaa lagu soo bixinayaa shaygii uu dushiisa ku dhintay sidaas ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam
marka wadnihiisii oo khamro u dilaacay ayaa berrita lagu soo bixinayaa baktigaas ayaa lagu soo saarayaa meel daran asagoo ku shaqaynaya marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala xoolaha laga kasbayo daroogada ayaan la cunin waxaad arkaysaa dad badan oo masaajidda ku dukanaya oo adiga kaa cibaado badan oo diinta inay kaaga dadaal badan yihiin la moodo oo lagu leeyahay kulligood daroogay ku jiraan waa rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala war dad aan loo malay karin oo dhan waxaa lagu arkay inay qaad ka beecmushtaraan inay daroogo ka beecmushtaraan inay sigaar ka beecmushtaraan inay yani beec xaaraana wax ku kala gataan ayaa la arkay dadka sidaa lagu arkay waxaa lagu sheegayaa muwaxidiin waxaa lagu sheegayaa kuwa diinta gartay waxaa lagu sheegayaa kuwa diinta aqoon u leh war allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala war shilinka sida loo tabcayo adduunka looga tegaya oo aakhira la aadaya maalkaagana adduunka aad ku leedahay waa waxaad cuntid iyo waxaad labisatid iyo waxaad sadaqaysatid inta kale adduunka ayaad uga tegin waa lagaa dhaxlin libiya amaalna lagaagama hayo ilaahna aduu kugu xisaabayaa berrintii subxaanahu wa tacaala marka dad yow haddii caqli idinku jiro isaga fogaada ashyaada noocaasa qofka muslimkaa uma bannaana khamrada shayga la yidhaah ama daroogada in uu yidhaahdo nafsadayda ayaa nolol uga doondoonayaa nafsadayda ayaa nolol uga doonaya inuu yidhaah oo inaan ku noolaadaan raba uma bannaana mana loo ogola waxayna qofkii xoolihiisa daroogo geliyana waa la yacay wanahaa rasuulullahi sala allahu calayh wasalam can idaacati ilmaal rasuulkuna waxau dadka ka reebay xoolaha in la layaco dariiq aan laa'iqayn in lagu bixiyo waa uu diiday dadka iimaankale markuu alla la hadlayana waxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow waxyaalaha aan idinku arsuqnay oo wan wanaagsan xaggooda wax ka cuna ayuu allah yidhi allah ma oranin kuluu maa shi'tum wax alla waxaad doontaan cuna ma uusan oran allah kuluu maa wajadtum wax alla waxaad helaysaan cuna balse wuxuu yidhi waxa xalaasha ah oo nadiifka ah oo aan idinku arsuqnay qayb ka mida cuna dadka maanta joogaana waxay ku yidhahdeen wax alla waxaad heshiin cuna maxaa yeele waxaan ku cuninba waa la cunaa ay kugu mahmahayn bakti iyo xalaal xaaraan waxay doonaan ha noqdeen iyo xalaal ayagu u kala aaba yeeli maayaan marka muslimnima hadday jirto rabbi ha laga cabsado waxaa laga fiirsado allah subxaanahu wa tacaala muslimiinta waxau ku dhiirageliyey inay xalaasha isticmaalaan oy xaaraamta ka tagaan waxuuna rasuulku caddeeyey hilib walba ee xaaraamta ku baxay naartaa ku habboon waayo waxau odhanayaa nabigu sala allahu aleyh wasalam kullu laxmin nabata bilxaraami fahuwa awlaa binnaar war axad walba xaaraan ku cayilay ama ku xoogaabay oo aan ka tooba keenin naarta allah lagu shidayaa qofku hadduu ka tooba keeno ee uu rabbigii u soo laabto subxaanahu wa tacaala rabbi inuu saamaxo ayaa laga rajaynayaa oo dembigaa loo dhaafo marka in laydin saamaxo oo wanaag laydin gaarsiiya haddaad doonaysaan qaladka lagalana ha laga laabto diinta islaamkana sida ay tahay ha loo ilaaliyo allah subxaanahu wa tacaala markuu ka sheekaynaya qurunka ay khamradu dhalinaysa waxau yidhi innamaa yuriidu ashaydaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa waxau shaydaanku doonayaa oo kali ah inuu dhexdiinna ku rido cadaawo iyo baqdaa cayaar kasta oo aad diinta islaamku diiday iyo shay kasta oo cabiddiisa iyo cunidiisa diinta islaamku ay diiday waxay ummadda sabab ugu noqonayaan inay isnecbaadaan inay isgooyaan inay diriraan inay isdhibaan inay wax walba isku sameeyaan taasay sabab u noqon dadka marka caakifiinta oo ku neg inay khamro cabaan amay qamaar cayaaraan amay dublad cayaaraan amay shax iyo baalka la yidhaahdo jaro cayaaraan waa dad rabbi waxau ugu xaroon lahay ka shaqaynaya rabbi subxaanahu wa tacaala inay raalli galayaanna aan doonayn marka shaydaanku muxuu doonayaa an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa fi alkhamri waalmaysir khamrada iyo maysirka inuu dhexdiinna cadaawo uga sameeyo doonayaa oo haddii daroogo la cuno oo daroogo la kala iibsado waa la isnicin qamaarka baalka la yidhaha lacag baa lagu kala qaataa waa la isku nicin maxuu sii doonayaa shaydaanku wayasudakum can dikri illahi wa can isalaati fahal antum muntahuun waxau doonayaa inuu idinka manciyo idinka reebo idinka xigsado rabbi dikrigiisa salaada allah ee ma tihiin dad yahow islaamnimada sheeganaya ama muslimiintow ma tihiin kuwa ka haraya khamro iyo qamaar ma tihiin kuwa ka haraya daroogo iyo qurun
متين كوا كهريا بقت إيا وحكسو دين تديدي dadkii iimaanka lahay waxay yiraahdeen intahayna waanu ka harnay muslimiintii waxay yiraahdeen kama aanan harin ee danteena wali ku jirta marka way ku soconayaan ka darooga kala hadasho ka qamra kala hadasho ka qaad iyo sigaar kala hadasho ka riba kala hadasho illa qof rabbi u naxariisto oo taala waxaana ogaataan buu Allah yiri haddii xaqqa ka jeesataan oo Allah adeeci weydaan ورسولك كده يويسان ودين إسلام كسيدة يتيوس أويدان رسولك نقدشي سوحا هذي أوكالي أواء جارسين حقنا وو إذن سوى جارسين أذنك أم بعضنا كاللي إذن كدونيا قبكي كل نظم وايو قالوا وايانا أساق أم بأدل الله كل ميا وكمسلمين تو ربي دين كعب صدا وحق إلى عليا والله أدعى أو قمرضا إيا الدروغة إساق ورسولك أدعى وحو البو إذن كيري وحرام إساق وشيطانك وحو دونيا إنو الدل دحدي نبغو وروحو دونيا إنو اسكوكين ديرو وروحو دونيا إنو إذن قرحيو عمل كالنار لغو قريو أولا إذن قراري عمل كالجنة لغو قرو وروحو دونيا إنو هدي الديل الدار إيه هوفر ربنا إذن كوشي كيو مدبنا أيام نولاد دونتان وجب أيها كتوبة كيني دونتان وردد يوميا للأغين دد عافمال قبائن الأذان أيها كوي جرنا أي جوغان كمن صحيح مات من غير إلا وإن من عافمال قبطي أودما سيئيقون إلا قبين وكم من سقيم مات عاش حينا من الدهر إن مسجرا أيام مدبنا سنوراتي وحالك يا بقف إنه كنت لقلي وأدأ يرتاح إنه كنت لقلي والعافمال قبطا وريا الله قلت سنن والرب الله قبه سبحانه وتعالى وشيطانك وحو إذن كما حينيا وذكرك الله وصلاة الله وحكست أو ذكرك الله كامن عيا وحكست أو صلاة الله كامن عيا وحكست أو عبادة ربي كامشغولية وحال أغانيسا إليهين بغتي إيا وحال ربي أوصفها لك سبحانه وتعالى إساقا هارا قرنك رسولك الدشي سيقارسين بأهاتي وإي أو إذن أمري أو إذن كيري وحلال لا إمادة وإي أو إذن عديي أو إذن كيري وحرام إساقا وربك بغض سبحانه وتعالى sidaas ayaa muslimiinta laga doonayaa waana dariiqa liibaanta lagu gaarayo war muslimiinta oo isaga taga qurunka wariyaan xaaraan la gadanin oon xaaraan laga beex mushtarin oo wax diintu xarimtay la suuq geynin lana soo iibsanin xoolaha aad iska leeyihiin waqtiga ka dhowra wax yar oo xalaal ah oo rabbi daacadiisa ku gudataan ayaa idinkaga khayr badan wax badan oo baqti oo Allah idinku cadaabo subhanahu wa ta'ala هذا دين الإسلام كإلالية رسولك صلى الله عليه وسلم وحوي أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره وحن أنوه إذن كرهب يا أيوه صلى الله عليه وسلم شيء يربان إذن كرهب وكيس بدن لغو سخرام أيوه عن قليل ما شيء كيس يربان إذن كرهب يا أبوه أسكر كثيره كثير كيس أو واحد سخرامين أيوه waxa markay bataan lagu sagramayo kooda yarban in kama inaya iska deeyay buu sallallahu alayhi wasallam waayo sheeyal ayaa jira marka la iska badiya lagu sagramaya inta ay yariin lagu sagrami maayo marka waxa uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam shay kiisa badan lagu sagramo oo maskaxda bedelaya wax yar oo kamida inaad ka isticmaashaan waan idin diiday ee iska deeya sidaas ayuu yiri sallallahu alayhi wasallam حديث كاسوا صحيح نسائي بانا صوصار يدارمي والمسلمين تو ربيين كحفصة او اسكا إلالية وحيالها قرن كأه وردت كإسلام كو دروغة بيع إيدا كتاقا ورغات كبيع إيسا كتاقا ورغمرة بيع إيدا كتاقا ورسيقار كبيع إيسا كتاقا وردت كأشياء استعمالها ربي وحو كسل لداشان الرموت ومرة كوالي ربي وحو كهوجيا عبادة ددن كيدا ومرة اللبادي أرساق ذولا أيها بركة الله كقالا ومرة سدحانا علامة ضدك مؤمنين تايسكاليين بوجه وذا لغترا
ومرة أفراد رب العزة سبحانه وتعالى دقنا الآن أرققه إيا فخرك حفصش إيا بلايا وكسل ذا ومركز سنة الدحال وذا ما أقبله وربي على قبه سبحانه وتعالى حي الحرام بيعون يان كنس قينيا وفك حرام تعون أو استعمالنا دعاء لقم يليو مركز ربي كبه سبحانه وتعالى والدين تاني السلام كإلالية دادبنا وحي إليه شيء قادك يسيقارك وكاليو دروغاد أيو محا الدينية آيات الشيء سواته آيات الشيء سواحوي ويحل اللهم الضيبات ويحرم عليهم الخبائث وحالله حليلي وحا وناكسن وحانا الدشو ذا لقا حرم يددك وحكسوا خبيثة أشياء أصيني خبيث قرنيهن والأقيه إني سنحلالهم بالأقيه إني بقتيين بالأقيه دينta islaamkay u daran yihiin qofka naftiisay u daran yihiin nolosha qofkoo dhan bay u daran yihiin xoolahay u daran yihiin muslimiintay u daran yihiin malaa'igtay dhibayaan waxaas qurun weeye rabbigiin ka baqaya isaga taga haddaad wanaag doonaysaan waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam anhaa can kulli muskirin askara can isalaad waan reebayaa oo waan idinka mancindadow oo qof walba waan ka reebayaa wax kasta oo wax muskira oo wax sakhraamiya oo askara can salaad xagga salaada dadka ka sakhraaminaya oo salaada xajis uga beeraya oo salaada ka xigsanaya wax walba oo noocaas waan idinka mancinayaa buu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiidka asaga muslim baa soo saaray waa xadiid saxiixa wax walba oo salaada dadka ka mashquuliya dadka rasuulku wuu diiday qaadka bahalka la yiraahdo jameecadu dadka ka reeba salaadaha oo dhan buu dadka ka manciya sigaarku ummadda salaada ka reeba maxaa yeelay dadka masjidka ku dukanaya u dhibaaba daroogadu waa sida oo kale wa rabbika baqa subhanahu wa ta'ala wa rabbika absado yan diinta islaamka lagu cayaarin warashadaas beecooda iyo ka beec musharkooda iska deeya war dadka hoteelada khamrada furto u xirxira ninkii baar khamraalahow barakada inuu alla kaa qaadayo ogow inaad bi'i doonto barakada aanu kugu dhici doonto baabka qur-aanka ayaa caddeeyey belalkii naartana waa lagu gey doonaa adoo ba'ayaysanaya maxaa yeele baraka beele ayaa tahay ee waxaa ka laabo haddaad tooba keento toobadu way furan tahay laakiin waa inaad ka takhallusto baararka khamrada dad badan baa jiro ka shaqeeya baararka khamrada nin kasta baar khamra ka shaqeeya lacnad baa ku dhacday nin kasta ee ka shaqeeya hilib khansiir lacnad baa ku dhacday axad kasta ee darooga ka shaqeeya lacnad baa ku dhacday dadka qaadka iibgeeya ama soo gada lacnad baa ku dhacday kuwa sigaarka ka beec musharana kadalika wa rabbika cabsada subxaanahu wa tacaala war dad badan oo loo malaynayo inay iimaan iyo diin leeyihiin baa baktigan ku jira oo aan loo malay karin war allaha laga cabsado subxaanahu wa tacaala war xaggee diintu idinka martay war dad islaama oo rabbigood ku kalsoon oo rabbi arsaaqdooda ballan qaada miyaanan ahayn war iska deeya war daroogada iyo qurunka gaaladii baa ka qaylisay iska day islaamkii gaaladii baa ka qaylinaysa oo dhibkooda aragtay oo doonaysa inay adduunka ka dabargoyso oo dhibaato ku haysaa adoo qof muslima ah oo diintaadu ku diiday oo haddaad dhibaatada ku sabarto janno lagu ballan qaaday maxaa kugu kallifay balaayada inaad dhex gashid wa rabbigiin ka cabsada subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi halaatatun qad xarama allahu calayhim aljanna saddex dushooda alla wou ka xarimay jannada inay galaan waaba ka xaaraan buu yidhi sala allahu calayh wasalam mudminu alkhamri waalcaaq waaldayuutu aladii yuqiru fi ahli alkhubus saddexdu waxay kala yihiin buu yidhi sala allahu calayh wasalam mudminu alkhamri khamrada axadka samaynteeda iyo cabitaankeeda iyo ka shaqaynteeda mid ka mida daa'ima jannada waa laga xarimay mudminka waxaa laga wadaa qofka daa'iman khamrada cabaa ama daa'iman ka shaqeeya ama daa'iman ayada sameeya ama daa'iman ayada soo gada dadka waa laga xarimay jannada alle jannada waa ka xaaraan buu yidhi sala allahu calayh wasalam jannadii rabbi ayaa laga xarimay jannadii allah loo diiday waxaa qofka labaad yahay caaqa axadka waalidkiisa caasiyey oo diinta islaamka ku xadgudbay oo muslimiinta xuquuqdooda la yacay asagana jannada waa laga xarimay sida ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam qofka saddexaad waa dayuudka waxaa la yidhaha dadka uu mas-uulka ka yahay qofka qurunka iyo baktiga ku fiirsaday dayuudkaana jannada waa laga xarimo yidhi sala allahu calayh wasalam
حديثك هو صحيح إمام أحمد بن صوصاري وهذا بدك إسلام كوما أركتان دبعته سيوت الله وربك إنك بغض سبحانه وتعالى ورزقك يا أشارة خمرة نك السماية أما كبح مشترى السيدة الدائمة إيا وحكس أو دروغات جنة والله حرمي أما قاد هالنقدين أما حربات هالنقدين أما كنيني هالنقدين أما بضلقس هالنقدين أما بغتك هالنقدين وحكس أو بني آدم كحافمات كيسا يدين تيسا وحدمية أو دروغة أي كجر تددك كبح مشترى يا كبح مشترى كودا أما استعمال كودا الدائمة يا جنة وكحاران بو نبي قولي صلى الله عليه وسلم رسولك الله سيدايري إذ كلام أورنين هذا رسولك الرميسان تاي إذ كده يقولون كاتبو جرتي هذيك لو عاتنا محاقنا يا أرسالنا ربك هو يحلوش هذا رزق كوسيني إذ كان أرسل رزق كوسيني مرك حلوش هو يأكل جرتي وحاقات كل ولا ربي بكوسيني هذا الدنيا ربك كوسا صار إذ كوسا صار وحاق أنت أرسل كوبالان قاضي يا سيدا بغتك يقولون كأودوني أو ربك كبر سبحانه وتعالى عقلي هدو جرى سيدا الله يلا اللي اسكده يقولونك أحد كوالد كيس حاسي ومسلمين تحاسق كل نقض إسلام كدبا يا جنة يا قلمايا وكا حرام كان ديوسك ودد كيس قرونك كفير صدي سيدا آبها علميسا وناك كبر بارين إن انتي سقونا دا أقليي وقرونك كفير سنيا يعني علميسا السيجار كي يقات كي قرونك كفير سنيا علميسا دروغة كفير سنيا وحالها يا dad mas'uulinimo isku sheegayo odayaal ah oo oranaya dad wanaagsan baanu nahay oo dumarkii ay dhaleen hablii ayagu ay dhaleen goona u galiyay xijaabka markay qaateen dharka ka dhigay oo garaacay sawdayus ahlun naar ah ma aha qofkaas shaydaan waliba ah masaajiday ku dukanayaan muslimiin bay iska dhigayaan maxay rabbi sanayaan subhanahu wa ta'ala ninka gabar qaawanaanteeda raalli ku noqday oo xijaabkeeda ka xumaaday waa dayus waxaana kamiyay dadka jannada alla laga xarimay oo naarta alle ehelka looga dhigayo rabbi ka cabsada subhanahu wa ta'ala wariyan dayuutiin la noqonin inaan xijaabaninka wax ka sheega dayuutiin oo raba waxa arkaysaa nin dhan oo inantiisa lacag u siinayo xijaabka iska dhig goonna soo gado kobadha dheer xiro gaariga cad ninka saaran saaxiib ka dhigo oo qurunka iyo waqtiga u fasaxaya diinta islaamkana aan ku arki karin markay masjidka iyo dugsiga quraanka lagu baranayo soo aado waxa uu leeyahay waa laga dinaysanayay markay aado Curuba iyo Hilton iyo meel daran ama Paris ay u dhooftana waa in reer magaalo tacliin soo baranaysay soo shaydaan ma aha qofkaas wama hadalika safka ugu horeeya salaada kugu xiriiriya war rabbigii ka cabsado masaajida umada ku xiriiriyina oo ahad gabadhii oo dhala ay qaawantay naagtiisana qaawana suuqa ku socoto ilaada laga aqbalaya ma jirto ee waxa ku masruufay raalli uga ah haddii waxa raalli uga yahay oo ku wada asagu waa khalaas haddii raalli uga ahayn oo run sheegayo aynu eriyaa runtana uu sheegaa lama kala dhintaa salaantana uu gooyaa rabbi laga baqdo subhanahu wa ta'ala allah ma yalla khadicin karaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri ثلاثة لا تقربهم الملائكة saddex qofood malaa'igta alle naxariista wada uma soo dhawaato meel ay joogaan ma timaado yay kala yihiin as-sakran wal mutadammiqu biz-za'faran wal junub ahad ka sakhraanka oo marqaamay ama qaada ku marqaamo ama darooga kale iyo qurun kale ha ku marqaame makaanka oo jooga malaa'igta naxariista wada ma timaado ma soo fariisato aqalka oo hurdaya qof qayilaya ama oo ku jira malaa'igta naxariista wada ma timaado meelaha lagu qayiro oo qaadka lagu cuno oo daroogada lagu isticmaalo qurunka iyo kuleelka ka soo baxaya ka arag malaa'igta naxariisto idilma timaado rabbi baa ka horjiya subhanahu wa ta'ala wax naxariisina halka yimaadin qofka labaad waa qofka zacfaraanka isku dharoobay oo yani zaygi dumarka lagu yaqaanay ninka isticmaalay weeye hayla zacfaraan iyo ashada noocaas dumarka lagu yaqaan ahad ka saddexaad waa qofkan janaabada ka mayran janaabada qofka aan ka mayran aqalka oo jooga malaa'igta naxariista wada soo ma gasho qofka aan janaabada ka mayran oo lagu sheego waa ka salaada dukan maxaa yeelay qofka salaada dukada janaabada uu ka mayranaya qofka aan salaada dukan janaaba kama mayrto waxa laga wada hadda xataa mayrto ilaahay inuu ku caabudo uma mayrto marka isagoo mayran buu la mid yahay aqalka oo jooga malaa'igta naxariista wada soo ma gasho وربك إنك حرصه إسرائيلية حديث كاسوا صحيح بزار أبا صوصار غيرك الباني السلسلة دي صحيحة يوكوغري
marka muslimiinta rabbigiin ka cabsada oo khayraadka iyo wanaag rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu oranayaa xarama allahu alkhamra wa kullu muskirin xaraam rabbi khamrada wuu xarimay shay kasta oo muskiruna xaraam weeye wax kasta oo muskira waa xaraam khamradana allah wuu xarimay xadiis saxiixa oo Nasaa'i soo saaray ayuu sidaa nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam marka dadka muslimiinta rabbigiin ka cabsada oo khamrada iyo qurunka iska deeya oo diinta islaamka dadkeeda noqda oo dulliga ka durga oo wixii rabbi raaliga ka ahay la imaada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri shaaribul khamri ka'abidi wasan ahadka khamrada caba wa ahadka wax kasta oo darooga isticmaale sanam nin caabuda ayuu la mid yahay caabudu wasan ayuu la mid yahay yiri sallallahu alayhi wasallam وشارب الخمر كعابد اللات والعزى خمرنا متكعبة إيا وحا مسكحة بدلا أوردن سنم كالليلة اللاتي عزى أحد عابدي أو إلى ذلك كدو الاعتكاف أيو لمديهي سيدا سيويري صلى الله عليه وسلم معناها سنة وحا ويان معصية إيا الدنبي انتي سكالة أيضا أفريسا مركا قفكو هدو خمر حبو انت كلا أو قرنا أو آبيال المايو wax kasta oo baqtiya way u sahlayeen wax kasta oo xumaataana way u fududyihiin qof kasta ee baqtiga iyo qurunka ka baax mushtaraka saasoo kala weeyay taas ayuu oranaya sallallahu alayhi wasallam min sanam caabuday oo ilaahay magaciisa inkiray ayaa lala meel dhigay ninkii khamra cabayay oo khamra ku shaqalaha ايش isgeyleed baa laga rabaa rasuulka allah sida oranaya sallallahu alayhi wasallam wa hadith sahiha xaarid ma soo saara ibn umar baa laga wariyay ninka la yiraahdo ibn abi ubay ninka la yiraahdo kitaabkiisa kitaab iimaan la yiraahdo ku qoray wa rabbi laga boqo subhanahu wa ta'ala war muslimiinta bal islaaliya oo bal u jeeda arinku sida uu yahay war khamrada ninka caba balaayo way ku dhacday war khamrada ninka caba balaayo way ku dhacday aan khamrada loo dhawaanin war khamradu shay xun weeye rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram mid kasta ee wax sakraamiya waa khamra shay kasta ee muskiruna xaraam weeye waman shariba alkhamra fi dunya famata wahuwa yudminuha ahadkii khamra caba oo adduunka ku caba oo asagoo cabitaankeeda daa'imaya ku dhinta lam yatub oo aan ka tooba keenin lam yashrabha fi alaakhirah aakhirakum cabo aakhirakum cabo macnaheeda waxaa looga jeedaa jannada alla ma galo maxaa yeelay qofka janno gala khamra alla waa siinaya خمرني أن لقوا ولين أو قيمها بالناس أي ربي عبسيني سبحانه وتعالى لكن وحا لقوا ولا الجنة اللي جيل ما هيو وفكا إسلاقوا حبتان كذا دائما يكون انتي إمام أحمد يا مسلم بأسوى صاري مركا غفكا مسلم كاو إسكا إلالي خمرة غفكي حبتان كذا إيا كشقين تيدا إيا إيبقين تيدا إيا سو إيبين تيدا وحكا ملا أسلاقوا كسوغا كجاري ودوسيدها كسعضي غفكا أسلاقا ما انت آخرة ما أبيوه معناها النار جنة على اللي مكينية النار تالسيحينية تاسيا لغا وضع وربي الله قبقه سبحانه وتعالى والدين تعالى إلى عليه وعو رسولك يري صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له 43 صباحا ورغفتي خمر عبه أفرتن صلاة أفرتن صبح صلاة لغا ما أقبله لم تقبل له 43 صباحا أفرتن صبح صلاة لغا ما أقبله معناه وحا لولا جيدا أفرتن مع الموت صلاة لغا ما أقبله ففي خمر عبي وإنت علوشي سكوجي ريسو فإن تاب الله عليه هدو توبة كان ربي واكا توبة أقبلها فإن عاد لم تقبل له 43 صباحا هدو الله بتو مركله أفرتن مع الموت صلاة لغا ما أقبله أفرتن صباح وأفرتن مع الموت فإن تاب الله عليه مر لما ردوا هدنا التوبة كان الله واكا توبة أكبرها وتوبة ديس ربي وويانا سبحانه وتعالى فإن عاد لم تقبل له 43 صباحا مر سدحان هدوا الله أفرتن صباح صلاة لغا ما أقبله فإن تاب الله عليه هدوا توبة كان وصول الله والله توبة أكبرها فإن عاد الرابعة مر أفراد هدو الله
لم تقبل له صلاة 40 صباحا أفرتن بري صلاة لقام أقبله فإن تاب لم يتب الله عليه هدو إلى مر أفرادان توبة كينا يا الله كما توبة أقبله معايا لوانين كجي سياسية دينة إسلامك وصدوا ربي إليه لقام أقبله وسقاه من نهر الخبال وحانا لقوا ورابيا وبيقى ليلة نهر الخبال أيها لقوا ورابيا ولقى درجيا ووادي ددك أهل النار كعرون كودو كسو حانيو وادي قاسا لقوا ورابيا وادي قاسا عبتان لقى السن وادي قاسا لقى درجين مصيبة أيها سيدا الله قصة لديا وربي هلقى عبصدو وربي هلقى عبصدو وحال لقوا قويري هدي أو سد حجر توبة الله توبة كينا ولا قيالي مر أفرر هذا الله تلقى توبة أقبل مايو أحد كعبة إيا كان صوقضة إيا كان كسقاية إيا كان لحقت يدعونه إيا متك إيبقاية إيا متك سوئيبية إيا متك سماية كل قولنا إسلامي دوية وإسلامي وحل قيا يا مجران ولكن ربي الله يبقى سبحانه وتعالى حديث كاسوا صحيح وحنا صار إمام أحمد الترمذي عبد الله بن عمر بن كوريان وحكى صار طريق الإمام أحمد نسائي حاكم أيقنا ابن عمر بن كوريان دك أهل النار كحرم كودا العبسية وحلق أكبر أو عبادة اللي يرى مجران هذه قفكاس أو كل انت أفرتن كبري أو أنسانات لقى أكبر النار تأيو قليا سلو رسولك حديثك لكو شاكي صلى الله عليه وسلم وحونا رسولك يري من مات وهو مدمر خمر أحد كيد بنت أسلقوا خمر حبيتان كده أمك شقين كده الدائمية لقي الله وهو كعابدي وطن ربي أيو لكل ما صنم أحد عابدي أسلقوا الله مدأ سيدا سيويري صلوات الله وسلامه عليه سنم أحد عابدي أسلقوا الله مدأ أيو ربي لكل مياه وحديث صحيح حديث كسيدة أورانا يا الضبراني إيا أبو نعيم أيانا صوصاري أبو نعيم من كليلة مركا مسلمين تو ربكين كعبسدة ودين إسلام كإلالية وخمرنا إسلاق الدرقة والخمرنا عبننا لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر وهو رسولكم إلى خمرها عبننا خمرنا الشر والبأيضا مفتاح وغفرة وفرصة بلايو أيضا فرصة وحديث صحيحة وحامس وصار ابن ماجه نكاليرا رسولك صلى الله عليه وسلم مركو لدردار ما يبي الدردوحة وكيري ربي قاها الشريك يلي هدي لقو يقول لقو سلاد واجبنا كس أوتين سلاد واجب قفكي كس أوتين ألا بري بوكيهاي خمر لها عبد خمر ذو الشيء والشرع أيضا مفتاح أيضا مفتاح بلايو من أيضا فرطة سيدة دت الخمر ذا إسكا إلالي خمر ذا إسكا إلالي دروغ ذا إسكا إلالي وحيالا مسكح ذا بدل إسكا إلالي خمر ذا مقحة أمبا كربحي لكن وحكست أو عقل قدبه ولا خمر وي الخمر كلما خامر العقل ووحكست عقل بني آدم كتبديل إيه تغير كسمين كرايا ودورين كرايا مسلمين تو وين إسكا ديان وين يسن كبع مشترين وين يسن عنين وين يسن العقد هذا قادنين وين يسن عبين وين يسن قف عبا يسود دوينين ذاتك استعماليا وين لقرها الله نستحيو رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث خمرضو قرنك أيه هو يوتاي فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما أحد كي عبا صلاة دي سلم أكبر أفرت مع الموت فإن مات وهي في بدني مات ميتة جاهلية حدو دنت أيضا عروشي سأي كجرته عروشة أيضا عروشي سوى خبرة كميدو أي كجرها حدو دنتو وحو دنت جاري لو نسبة جاري الجاهلية معناها وحو شبهها جاري أو دنتي أهل الجاهلية جاري دو أي شبه ذا معايا الجاهلية أيضا لقو يقين إني خمرة انت حبان أيضا عروشة ذي كبح ذي دنتان أما سيدو عبيان انت ونها كدو سيدو دنتان يبير كاميرات ربي سبحانه وتعالى ونغدب ونبي وانو عدي خمر قفكي عبا صلاتنا لقى أقبل مايو عروس أيضا أغجرت هذا وكل انتنا ناربو قليا قريد سنة ومدي الجاهلية ومدي الدين لأنت ومدي قرنك وربك عبد سبحانه وتعالى حديث كان سوا حسن دوراني أيام معجم الأوسط كقرأ كتابك ليرا وهو رسولك يري صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش
خمرض فواحشت إيا قرن كورتن بيهو يوتاي وأكبر الكبائر دنبيالك لقلنا آيادا أقوين بويري صلى الله عليه وسلم أما قوة وين بكمتاي من شربها قفكي أما وقع على أمه وخالته وحمته أحكي أبا خمرضة وقع أيدنا وحوكزنا على أمي ويدي وخالتي أبريرتي وحمتي إيدي أيو كزنيستا وكلها حقيقانا واستعماليا وقفك خمرضة حالة دي سلاوية بل ماشي أي قارسان تي أرك قف والبو ربك كعبسو كدكتونو خمرضة إسكايلاري حديث كاسوا حسن ضبراني ما معجم الكبير كتاب كالإله كغري الباني نسل سردي الصحيحة أيو كغري وربك عبس سبحانه وتعالى وردتك مسلمين توحا كان إسكايلارية وروحا كان إسكايلارية ورها أدواننا وربغتك أي الدروغة ورها إيب جايننا ورها سوء إيب سننا وردتك إيب سنة يها كل رجلنا كوانية وعلىك الله سبحانه وتعالى وحو رسولك يري صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خصف وغلف ومسخ آخر الزمان وحا أهان دونه يري صلى الله عليه وسلم خصف دلك والله يسرجره غلف دقاحي إلا يسكو صوتوره مسخ صورة دعودتك اللي قد بدلوا الضانير يا خناسير لك دقو سلاس أي آخر الزمان إماد دونتو نبي يري صلى الله عليه وسلم وحا إماد دونه وامحي dhulkoo dadka lala jarayo ayadoo lagu soo tuurayo dhagxaan iyo wax daran iyo suuradooda la bedelo arrintaas waqtigeelay dhicin idaa dhaharat almacaazif walqaynaa wasuxillat alkhamru buu yidhi sala allahu alay wasalam kolka muusiqada la xalliso iyo haweenka qaynaadka maqniyaadka kuwa heesa oo gabyo weeyaane oo muusiqada garaaca dumarka fanaaniinta lagu yaqaan waxaa marka la xallisho oo muusiqa iyo naaga heesa oo gaagaara la yeesho oo muusiqada lagu raaxaysto oo dumarka heestooda la jeclaado ama caashaqa lagu magacaabo ama shaydaaniyaha lagu magacaabe oo khamrada la xallisho waqtiga ay sidaas u dhacdo ayaa rabbi ummadda ku sallidi doonaa saddexdaa wax ka mid ayuu yidhi ama saddexdaba la isku dari doonaa salawaatullahi wasalaamu calayh maanta saddexdii nabiga oo yidhi waa la xallilan ama way soo daahireen waa soo daahireen muusiqada meel kastaa lagu garaacay cod alla codkaad maqashaa waa naageeskeed dariiq walba waxa lagu cabayaa waa khamra waxa laga beex mushtarayaa waa khamra macnaha waxa dadku isticmaalaan maanta waa darooga ama qaad ha la yidhaahdo ama kariin ha la yidhaahdo ama xirbad ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo khamro kale waxa laga beex mushtara waa qurunka waxa la cunaa waa qurunka waxa la cabaa waa qurunka waxa lagu saaxiibaa waa dadka qurunka ku wada jira markaasaad arkaysaa qayb walba oo baktiga ka mida dadka ka shaqeeya si gaara isaga warhayaan inta daroogada gadaawo istaqaanaa inta qaadka gadaawo istaqaanaa inta sigaarka gadaawo istaqaanaa inta khamrada xabta oo yani isticmaasha way istaqaanaa waa wax cajiib badan وربي الله قبضه سبحانه وتعالى markaasaad arkaysaa kii muuminka ahay ood muuminka u malaynaysay oo wejigiisii sujuudda ka muuqanaysay oo marka darsiga la akrinaya illimaynayay oo masaajidka saacad walba kula joogay oo laleeyahay hebel daroogada ku jira oo lagu leeyahay hebel italiya ama se jarmalka galbeed ayuu qaad u diraa oo akaasuu ka beex mushtaraa war rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala war waxa kan waxa lagu doonay wax hagaagsan ma ahan ee dadka muslimiinta waxa kan ka fiirsada الله سبحانه وتعالى أكتس أيان عذاب ليدن كسلدين إسكيل عليه وحكم حديث كأسقه وحديث صحيحة دبراني أيانا كقول كتاب كسليرا معجم الكبير وحونا النود دي يا خمرة حليل الشديدة دروغة بنيس جيدة بغتك قادة شديدة دين تأولا قرمرو الرماس يونا قريبيا وأنه قد يا حديثك كانوا وحكس أو الدين تلقوا ممنوعي وحكس أو لقوا سقراميو وحكس عقلي بني آدم كوحوني بكريا أيو نو قد يا تاس أيو نو قد أحد صغير أون حلال إيا حرام كلا قرنا ينقفكي خمرة عبسية أما الدروغسية أما القاد برا أما السيجار برا ربي الدشي سوحا وحق إسا قدقي قفك السيدة ضفك إيا أو قرن كابري إن أو كورا بيدينة الخبال دتك أهل النار كعارون كود إنو عبيدو قدقو
ساسيو الله بلان قال سبحانه وتعالى ورد وددك مسلمين تاهو ودين تان إسلام كون نسبة شاقنايو أمرون هيدين كان نغوت أمر بين هيدين كان نغوت هدي إيمان كين حقيقي هاي وربكين كعبسان إيسان والعذاب الله كبغان إيسان والحوض كالنبي الردك غبتان اسكد يبيع بغتك اسكد يدروغة عنيتان كذا يبيع قين تيدا اسكد يخمرضة اسكد يقاتك اسكد يسيقارك اسكد يدروغة أو واحد يدو إذل ربي با إذن أرزقية رزاق دا رزق إذن سينا يحرارة أوها يكسنة رحمة ديسا كقوسنين قرونك كتاقا وهذا الوناك دون إيسان ربي أيام ويديسان إنا حقا إنو نبسوك الدين تددك لنا أو نقدقو ددك مسلمين تانا وقرقار قرونك ددك كساقين ينا أو نقبتو والإسلام كان لقود دالو الدين تددك ساقين هلا نقضو ورددو هلا توبك كان أو ربي هلا عبسدو الله يونو قرقار أو ددك الجنة نقدي الله يونو قرقار أو نار تانا نقحري أو ددك